وزير يا مدنيا شباب وحنكون سلامي السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعرن عادي ويسكد عشري إن قلب وزير لو رئيسته أو لو يديه حاجة وحمر أيام مع ذلك يشغل أيوه أيام ومضى حاجة ومر أيوه هرومر كسمية مع وقرشيسن ووحيسك عادي ودعة وحجارين مشران وحويانون محينو وجود بينا ومضى حالاتكي تبرت إيو معدنتو أي مريان bulshadu ay sugayso ama idin qorshaysan ama horeba loo dhameystiray ayuun baan wasiirka ugu yeernay wax gaar ah lagu yeedhay oo kale ma jiraan ku soo dhaw wasiir iyo wixii warbixina ee adumadda iyo qolayaasha u jeedinayso gudida joogtada ah ee golaha guurtida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida caadiga ahayd aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin yeeritaankana yeedheen aan sidaan u fahmay ma gudoomiyuuba sheegay xog waraysi halkay wax marayaana aad baan idinku mahad celinayaa howluhuna waxay noogu socdaan si caadi ah oo sidii dee howl maalmeedkii wasaaradda ee qaranka loo hayay ayuun baanu ku guda jiraa haddii aan u gudagalo qaybaha wasaaraddu ka kooban tahay waxay u qaybsan tahay 6 waaxood waaxda petroolka waaxda macdanta iyo waaxda tamarta waaxda maamulka iyo dhaqaalaha waaxda shaqaalaha iyo waaxda qorsheynta marka 3 waaxood baa wax soo saarka wada qaabilsan waxaan markaa ku horeynayaa waaxda petroolka waxaan u malaynayaa inay isugu keen dambeysay iyadoo 2 shirkadood ay wadanka ku jiraan shaqadii ay hayeen ee baaritaankana ay dhameeyeen markaa lagana sugayo oo lagu maqan yahay fasiraadii hawshii ay qabteen ahayd bahalka explorationka fasiraadiisii iyo daatadeedii iyo waxeedii tii inteeda badan way soo dhameeyeen waxaana lagu soo wareejiyay oo ay wasaaraddu maanta gacanta ku haysaa xogtii shaqada la qabtay xogtii waxaa gacanta ku haysaa wasaaradda xogtaasi waxay sheegaysaa khayr bay sheegaysaa labada shirkadoodba hawshii ay qabteen ahayd sahaaminta shidaalka xogta ka soo baxday oo wax yari u dhiman yihiin waxay sheegaysaa wax wanaagsan iyo wax ku dhiirasho leh waxaa u dhiman haddii alla yidhi baaritaanka marxaladii u dambeysay bay imika la gelayaa ee ceel qodistii sahanka ahaa kaasoo lagu ogaanayo waa la ogaaday waxaa imika cad in wadanka shidaal ku jiro ayay caddeeyeen laakiin qoditaanka ceelal qoditaan baa loo baahan yahay oo la hubiyo shidaalkaa ku jira ma yahay mid ganacsi geli kara taasaa imika qorshaha hawsheedii socotaa oo ay wadaan shirkadihii iyo wasaaraddu ka wada shaqaynayaan taasina hawl yar ma aha waxay u baahan tahay abaabul xoog leh marka waxa lagu jira abaabulkii iyo diyaar garowgii iyo haddii binkeed leeyahay dabada si waqtiga hawshaasi dhacayso loo cayibo taasi waa taa petroolku khayr buu sheegay sahankii la diray wuxuu sheegay khayr waxaan u gudbayaa macdantu way ka hawl yar tahay ama ka dhib yar tahay baaritaanka shidaalka
xagga waqtiga xagga dhaqaalaha iyo xagga aqoontaba technology ahaan farsamo ahaan baan u jeedaa dhaqaale ahaan iyo waqti ahaanba way ka yar tahay laakiin iyaduna ma hawl yara at the same time hawsheedu qudheedu ma yara marka loo barbar dhigo shidaalka ayuun bay ka yar tahay laakiin iyadu qudheedu waxay u baahan tahay aqoonteeda dhaqaalaheeda deebadka waqtigeeda in la siiyo waxay iyadu aanu imika wadnaa dhowr shirkadood oo kala duwan waxa ugu horeeya loo baahan yahay waxa weeyaan marka hore in la sameeyo baaritaan waxaad la haystaa maalan waddanka dee hore inooga sheekaysano horaan warbixin idii siiyey baaritaanadii horta in la hubiyo bacdanta ku jirta halkaa waa in intee leeg gradekeeduse waa maxay taas dhaqaale ahaan xukuumad ahaan inagu ma fulin karno oo uma hayno dhaqaalihii lagu fulin lahaa waxaanu ka doorbidnay markaa inaanu shirkado kolba intaanu u yeedhno oo soo shukaamino shirkado inaanu dhahno baadha dabeedna wixii hadhowto aad ka soo baxa dee inaad waxaaga ku qaadato inaad noqoto matala cidda ugu horraysa halkaa waxaa ka qodaysa